gudoomiyaha degmada Macalin Haruun oo maanta la hadlayay telefishinka qaranka ayaa bulshada degmada Macalin Haruun ugu baaqay inay nadaafadda aad u ilaaliyaan kana taxadiraan nadaafad darrada maadaama lagu jiro xilliga waqti roobaadka waxaan u sheegay in qashinku haddii aan la habaynin ama aan lagu shubin goobihii loogu talagalay ay ka iman karto dhibaato caafimaad dhinaca kalena wuxuu ugu baaqay dadweynaha inay si weyn ugu diyaar garoobaan xuska maalinta qaran ee 18 May maadaama ay ku jirno xilli roobaadkii ee raxmaadkiisa inoo shubay halkan degmada Axmed Macalin Haruun dadweynaha ku dhaqan iyo guud ahaan caasimadaba waxaan ku wargelinaynaa in la ilaaliyo nadaafadda sanitationka maadaama lagu jiro xilli roobaad oo uu ka dhalan karo cudurro dadweynaha ku dhaqan degmada Axmed Macalin Haruun inay iska soo bixiyaan cashuur sanadeedkii ardiyada ee ku waajibtay guryahooda iyo dhulkooda bannaan iyo meheradooda ganacsigaba dawladdu waxay qaadaa waa cashuurta yar ee maaragtay dadweynaha lagu adeegayo haday nadaafad noqoto iyo haday wadooyin noqoto iyo haday maaragtay nabadgelyo noqoto iyo haday wax kale noqotoba cashuurta runtii waa laf dhabarta maaragtay dawlad muddadii yareeda gaabneed ee aan maaragtay joogay waa ku simantahay ilaa 2 bilood degmada Axmed Macalin Haruun waxyaabaha aan ka qabanay degmada waxa kamid ah inaan marka horeba kordhiyay cashuurihii oo dakhligii maaragtay degmadan Axmed Macalin Haruun oo kor u qaaday inaan maaragtay iyagana shirkadaha hashiishka qaada ee maaragtay sanitation ka shaqeeya inaan iyagana la xisaabtanay oo aan maaragtay maalin walba shir joogta la galno waxa kale oo aan banaynay wadooyin jilcadayaala oo garanwaa iyo tiim ku baxay sidoo kale waxa xusid mudan in wado weyn oo 1 kiiloomitir iyo badh oo dhagax dhigay oo laamiya duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid wadadaas oo iska kaashadeen dawladda hoose caasimadda Hargeysa oo hogaaminayo maayarku iyo dadweynaha xaafadda wadadaasi 2 wiik hor baa la dhagax dhigay 3 wiik hor baa la dhagax dhigay imakana waa la bilaabay shaqadii baa ku socota waa wadadii noocii casriga ahaa ee asfalka ee roog ahaa laamida waa 1 kiiloomitir iyo badh waxa ku taala xaafadda Hodan Hills